waxaan dhahnay Qorraxey maaha meel suuqa Qorraxey waa meel dawladda Kenya ay u dhigtay in dadweynaha Kenya oo dhan ay ka faa'iideystaan oo la heritage site ayadooba aan ognahay dad inay ka ganacsadaan laakiin waxaan isdhahnay horta aan kala qaadno dadka 8 bilood ama electionka ka dambe soo galay dadkaas 4 meelood ay soo degeen 4taas meel waxaa amar lagu bixiyay oo anigana ku taageersanahay in laga xaqo meeshaas waxaan ka codsanaynaa dadkaas war walaalo shibow hadda baan ka sii bax laakiin haddaad rabtiin inaad ogaatiin milin bixin kara isniintan soo socota suga arrintaasna aan la siyaasayn wax kale aan lagu sheegin sidoo gabanaga sheegay laakiin waxaa rabtiin ba sheega siyaasay hadaad arrintaas diyaaraan u nahay shafkaan u qaracanaynaa arrintaas inay dhacdo waxaa laga yaabaa in la dhihi doono oo beri horeba notice analysis waxbana ma dhicin balance baran dad maraa isbartaa soo ma sabardaan isbaran chieftaa jooga halkan MCA wuu joogaa ayagaa naga aqaano iyo odayaashii 4 qayb waan bixinaynaa insha Allah taala laakiin tadama nansinin qofka baadkiisa waa fuqsan karaa wuxuu ku jiro waa baxsan karaa laakiin meeshan faa'iidada dadka yar ku imaanayo oo meesha wax ku hasto waxaan u barbar dhigi waynay qasaalada bulshada ku imaanayso dhan caafimaad dhan security dhan halis oo naftoodii keli haatan haddii aan maartaan firin marka municipality-ga ayadoo la shaqaynaya security-ga odayaashii qof walbana oo loo sii sheega wax la qarina ma leh berri barsadaa laga samaynaa maalin walba raadiyaan ka sheegaynaa ilaa axaddi dadkaa rabtoon wuxuudi ilaa axaddi ka dambo halis eedin isaan ku heshiinay watu wa municipality 7 days kaasi kila mtu ambaye yake itaenda kubomolewa atajua wax laga beenshiga ma noqon doonto waxaan waqti u siin waxa weeyaan in baati walba kan waa tagaa kan waa baxa la dhigi kara oo aysan dhicin sidii chiefka hadda sheegaya oo kana waa la dumay kana waa laga tagay leenka lagu heshiiyey waa in la raaco leenka lagu heshiiyey waa in la raaco oo aysan noqonin cadaalad darre ay kan ani baatan meesha ku leey malo so in haddaan instruct garayn oo kan hala daan leena malo sinamnayo chief ayo ku heshiin hadalka waa sidii loo dhameeyey ay gabanaga iyo MP-ga isku raaceen anigoo MCA area MCA anina waxaan garab ku siinaa arrinta go'aanka lagu wada gaaray codsigaana waxaa iska imaaday culumoodiinka shacabka odayaasha dhaqameedka marka annagana dadka la soo doortay waa ku kabanahay hadalkoodina waa qaadeen waana arrin muddo soo socota taas anagoo og Qorraxey dhib badan inay fooda ay ku keentay oo meel daroogo lagu iibsada fasahaad kala iyo bilcidda magaalada halayso meesha ay ka dhigtay islaam marka Qorraxey sidaan ogsoona waa xundurta magaalada marka waxaan rabnaa wixii kiosk la dhisay after election waxa meel ay ka hataba in la wada bixiyo dadkana waxaan ugu baaqaynaa si ay khasaaro ugu imaadin maalkooda baatigooda ay la baxaan si nidaam ah ka horo axadda soo socota waxaa kaloo dignin u diraynaa wixii garage oo ku yaala Qorraxey kulli ayagana 7 beri gudaheed inay ka saaraan gaaridooda iyo waxooda kulli maxaa yeelay oilka gaaridaas laga daadiyay wax walba ku daadiyay ciidaas ay galaan ciidaasna kulli ceelashan ay galaan waxaa kaloo ognahay meeshaas inay ka jirta nidaam xumo badan marka tilaabadan maanta qaadayna waxa way phase 1 in la bixiyo wixii after election la dhisay kulli in la bixiyo phase 2 aan inaan nidaam hagaajina oo waxa Qorraxey ku jiro kulli la bixiyo
then we look for alternative market. marka dawladdu ku dhawaaq waa maqshay gabneen waa kan mashmuuciyada nuuji madaxda kale oo security waa kuwa wajeeran annaka kombaleen geesan mooga ay ku ay jeebkooda kala soo bixin ma sideen annaka dhahnay ayaa yeeriya annaka madaxda waxana ay kijiji sawirkaayna annaka wadani meeshan waana dhibtay meeshan dhibkana naga soo gaaray waxaan ka qabto aykan waa qabtay bal soo qaraj gareeyeen ilaa Nairobi ka maadan meeshan ay maad sabab kale u baahan sabab qorxay ku saabsan garaj waxaas keenay iyo dhaqaale xumo iyo stupid waxaas keenay ayaa meeshaas ka dhaxay sheegi mahaya waxyaalaha qaarkood dadka gaaseedka tan waa u geeyay ayaa leeyahay meel galgal aan idin sheega hadda idin kaanay waxaan u malaynaa hadda isheeda ay haysanin meeshaas mabati iyo midka kale ma male laakiin waxaan idin leeyahay tala walaalka wala la taliya haddaad mid gabsan yahay inuu nala talisinaan rabnaa in dadka la talisinaan rabnaa halaga guuro mashayda hadda markii talada gacanta ka baxda annaka ba gadaal u baxayna dawladda shaqeyn laakiin warka in hadda la qaatay wadayada ciidana